السلام عليكم كسو دواذا برنامج كينا oo la dhaho codka Soomaalida maanta waxa la jooga Cabdullaahi Cabdirasaaq oo dhakhtar ah Cabdullaahi waxaan rabnaa inaan ka wareysano viruskan cusub oo la dhahayo corona muxuu yahay iyo sida looga badbaadaa marka Cabdullaahi hadaa toos u galno mowduuca muxuu yahay horta barnaamij viruskan la dhaho corona بسم الله محمد ما صنتهاي إن هذا منطقة وعزمتين حرونتينا هي برنامج كبا نسوي وحوي نختار أيها هاي لكن وحوي ما هي سبيشاليست أم تقف تخصص عذران إنفكشن كا وحسماني هذا التخصص قليل كلك وحسد هاي ما دام أي واجب نقص عرنتها بالشدة الصومالية وكونوا الدنمارك إنان بهذا عفماتك إنان intii ay soo gudbiyeen dawladda iyo wasaaradda caafimaadka inaan xoogahan u af Soomaaliyeyn oo aan marka sida aniga noo saameynayso bulsho ahaan Soomaali ahaan inaan ka hadalno maanta marka intaas ayaan idinla jeclaysanay horta intaana viruska gelin groupka ka socotid iyo maxaa sameeyeen maanuusheekii waxaan hadda tan aan ka socdaa groupka loo Smiles Sunnah for Bun SSF oo ah bahda caafimaadka oo ku dhaqan maaragtay Denmark runtii waxaan sameynaa waxa weeye inaan isku dayno sida mararkan oo kale inaan markay wax dhacaan ama cudurrada iyo caafimaadka inaan dadka bulshada Soomaalida u gudbino aan af Soomaaliyeeno badan waxaan qabanaa maalmooyin aan u magac darnay sunasta test cell badan dadka waxa magaalooyinka weyn ku degan weyn yaqaanaan sanad walba aan u tagnaa marka waxa way hadafkeen wuxuu yahay oo aan rajayno inaan qofka Soomaaliyeed oo ku nool Denmark mustawihiisa caafimaadka inaan kor u soo qaadno aan keenno kan daanishka ama ka basi fiican ba insha Allah marka hadafkeen wata okay hadda viruskan toos u galno muxuu yahay iyo sidoo ku imaaday horta coronavirus waxaan filayaa maanta numa jiro qof oo dhiga ku dhufan ama maqlin TV-ga daarisa internet-ka galaysa baska raacisa qof walba wuxuu ku hayaa afkiisa mataqaana coronavirus waxa moodaa horta inuu viruskan farqul nagu hayo ilaaha naga ilaaliyo coronavirus waxa way horta waa virus sida magaca uu wato cudurrada infectionka keenana waxay leeyihiin qaybo kala duwan waxa ku jira viruska bacteria parasite-ka laakiin group walbana intaasoo noocyo ayuu kala duwan yahay hadba dhismaysu u dhisan yahay iyo sidoo uu jirka qofka bani aadanka u weeraro marka coronavirus horta way jireen cudurkan groupkan coronavirus la dhaho waxa weeye wixii keenan badanaa faculties waxay dhahaan intaasoo sano kufacay hargabka laakiin waxa cusub waxa weeye noocan oo ku magac dareen silver viruska waxa magaciisa lagu magac daray SARS-CoV-2 oo ah severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 wuxuuna keenayaa cudurka ay ku magac dareen COVID-19 so adii hadda tan ka soo qaad HIV AIDS muxuu kula duwan viruska waxa la HIV cudurkana marka muhiim in magacyada horta la saxo because waxa weeye sida matqaan magaciisa la isku fahmo waa cudur ama viruskani hadda ka hor laguma arkin asagoo saameyn ama lagama dhaxelin qof bani aadam inuu xayawaanka ku dhex jiray ama lama garanayo taas laakiin bani aadam waa cudur bani aadam ku cusub waxa December-tii la soo dhaafay sanadkii hore 2019 magaaladan Wuhan gobolka Hubei oo xagga bariga China ku taala ayaa la arkay dhowr qof oo ka shaqeeya meesha dhahaan seafood market xagga adig kalluumaha ku iibiya matqana suuqaasi dad badan oo ka shaqeeya oo isbitaalka la imaanaya cudurkan oo la dhaho lung bitterness ama pneumonia oo la garanaynin sababta ama meeshu ka socdo
dhowr qof markay yimaadeen ayaa la isku dayay in la baaro waxaa la ogaaday markaa cudurkan ama viruskan cusub inuu yahay waxaana theory ahaan loo sheegay inuu ka yimaado magaciisii xayawaanka oo bani aadanka saas ugu soo gudbiyey runtii cudurkan waxa weeye si aad buu maaragtay media u qabsano sababtana waxa weeye xawaaruhu ku socdo ayaa aad u sareysa badanaa waa taqaana influencer jira sanad walba season influencer soo jira intaasoo qofaa dhinta laakiin sababta uu media u qabsaday cudurkan waxa weeye waa cudur cusub jirka bini aadan ku cusub marka badanaa qofka uu ku dhaco ama qofka viruska uu soo gaaro uu ku dhacayaa maadaama aanan immune fashwaar aanu lahayn ama waxay dhahaan antistoffer marka hadduu xawaaraha aad u socdana waxa weeye bulshadoo dhan uu saameyn karaa theoretical ahaan uu saameyn karaa markaana dhaawac weyn wuxuu geysanaa ama dhibaato xun dadka waayeelka insha Allah dadka badankood wixii laga murmaa waxay tahay cudurkan waa cudur aad u khatar ah dadna waxay dhahaan waa qufaca camal ama hergabka camal wuuna ka tagaa marka labadaas ra'yi ka saxsan marka horta waxa weeye waa laba extreme horta dadka dhahaya oo hysteria oo dhahaya waa akhir zaman waxa weeye wabillahi tawfiiq adduunka waxa weeye waa lagu kala tagay nin walba waxa weeye acmaashiisa si diyaarsada aakhiraas ku soo diyaariyo rag masaajidka isku qowqalay masaajidka waa laga xiray laakiin marka ama history wuu jiraa oo yani ina ka badbadis taa sax ma horta dadna way jiraan oo ku dhahaya aniga waxa weeye hargab haduu yahay hargab sanad walba nagu dhaca nolosha caadi ayaan u wadanaya taana sax ma waxa la rabaa inuu qofka fahmo sababta marka qofka sababta fahmo ayuu garanaya ahamiyadda ay leedahay ama wuxuu sameyn karo oo matqaana talaabooyin waxa la rabaa khatar wuxuu ku yahay bulshada individual ama qofka shakhsiyanna khatartu way kala duwan tahay oo adi risk group kuma jirtid marka khatarta bulshadu waxay ku leedahay waxa way culays badan waxa la saariyaa isbitaalada iyo halis wuxuu ku yahay dadka waayeelka iyo cudurrada soo culayska ma aha dadka ka dhimanayo laakiin waa dadkan jiranayo isbitaalka iyo meelahaas laga caawinayo exactly yani waxa halis wuxuu ku yahay dadka waayeelka iyo xanuunada chronic disease qaba magaciisa ii sheeg ha noqoto matqaana dhiikarka sonkorka AIDS ka noqoto cancer ka noqdo kuwaas ayuu halis ku yahay iyo waayeelka laakiin individual ahaan marka loo fiiriyo dadka dhalinyarada ama qofka caafimaad qaba halis kuma aha laakiin asaga halis ayuu qofka waayeel ku noqon kara markuu sii gudbiyo marka haddaan si faahfaahiyo oo sii sharxo kaba soo qaad adi maxamed ahaan ilaahay kuma keen laakiin viruska waad qabtaa kaba soo qaad waxaad ka shaqaysaa meel oo mataqaan ciise ay waayeel badan ay joogaan kaba soo qaad adi waad hargabka kugu dhacaya waad ku facaysaa xoolaha luqunta ayaa ku yara xanuunaysa qandhayar waa dhici karta habeenkiina ku qabato laakiin viruskaasi markaad u gudbisid ama dadkii waayeelka oo hadda kahor viruska jirkoodan u arkin ku dhacaya badankooda ayaka laakiin immune ama yani difaacooda aad buu hooseeya marka hargab bes kuma dhacayo waxaa ku dhacaya eventual yani cuduradan oo pneumoniada oo yani sanbabidu sii galaya wuxuuna keeni karaa qofkaas inuu mataqaan gaciis u baahnaado oxygen una baahnaado waxay dhahaan respiratorka oo mashiinka qofka ka caawisan naftiisa marka qofkaas halis buu ku yahay oo yani naftiisa uu dhiman karaa adi laakiin kuma aha laakiin marka waxaa la rabaa inaa meel dhexdhexaad oo qofka u fahmo ani haddaysan halis igu ahaan qof kale ayaa halis u noqon kara marka waa tan information ka rabna maanta inaan si kooban aan uga hadalno insha Allah okay markii dadka khubarada ay ka hadlaan viruskan waxay dhahaan dadka dhan dadka badankooda ku dhaca oo wadankan jooga hadduu dadka dhan uu ku dhacayo wax laga badbaadi kara ma aha dee ilaa qof walba uu soo maraa markaas warun waa su'aal aad u muhiim ah waxa weeye horta cudurka maadaama jirka qofka uusan u lahayn hadda ka hor waxay dhahaan antistoffer ka hortag yani manaacada uusan u diyaar ahayn qof walba ku dhaci karaa oo viruska la kulma laakiin hadduu si xawli ku socdo oo 100 qof ama 1000 qof hal mar u baahnaadaan isbitaalka la dhigo isbitaalka ma badbaadi karo kulligooda marka graph ayaa rabaa inaan tuso oo matqaan aad maalmahan
loo faafinayo oo mataqaana Facebook lagu faafinayo wasiirka caafimaadka xitaa Denmark oo shalay dadka tusay marka ma garanayo waa tusi kartaa okay ka soo qaad hadda graafkan ama sawirkan mikrofoonka codka ugu dhaweey saana hay okay waxa weeye waa la jeedaa soo laba siyaabo waxa weeye cudurku yani uu dhici kara laba jid ayuu mari karaa hadduu siduu hadda ku socdo uu ku socdo oo xawli aad yani in dadku ku dhacay ilaa oo yani magaciisa iyo hadaysan dawladda ay talaabooyinka xalay aysan qaadin hadaysan qaadi lahayn waxa dhici karta graafkan in aragno graafkan waa maxay graafkan kor ayuu aadiya dadka oo coronavirus ku dhacay marka waxa aragtaan waa dhibcoyn meeshaani ama xariiqin saas loo dhaaf yani loo talaabo x axis ka saaran waa intuu isbitaalka xamili karo oo qaadi karo marka kaba soo qaad hadda intensive outdalinka inuu isbitaalka uu hoo 20 boos u hayo 20 kaas boos hadduu hal mar 40 la keeno saa waxa ziyaada marka graafkan ayuu noqonayaa kor u kacaya laakiin markii dawladda ay dhahdo war isjira oo waxa weeye dadka jaamacadooyinka ay dadka dhahda ka jooga iskoolasha ka jooga shaqadooyinka dadka laga xiray dadka horta uu ku dhacayo ama viruska la kulmiyo way yaraanayaan marka uu ku dhaci doonaa dadka laakiin over a period waqti dheer ama waqti yani intuu bil gudaheeda ku dhici lahaa wuxuu waxa dhigtay 6 bilood inuu dhacdo marka 6 bilood waxa laga faa'iideysanaya haye inuusan dhaafin khadkan oo dhaafiya awoodda so waxa laga cabsanayo ma aha cudurka waxa laga cabsanaa dadku ku dhaco in meel lagu daaweynin la helo boosaskii inay horta isdhaafaan horta cudurku waa laga cabsanaya laakiin weyn oo laga cabsanaa waxa weeye dadka haday u baahnaadaan intensive outdaling oo kale aad ba farta wadnaha looga hayaa qalabkiina inuu yaraado hadda tan waxa ku arkino Italy oo kale waa arintaas Italy curve-kan ayay galeen curve-kan qofka haduu bilaabaan hal mar usan ka hortagin dawaamar ay sheekada ay faaftay marka aad bay adkaanaysaa hadda waxaan maqliyay maanta akhrinaya Italy waxay hadda mamnuucay jidka in la socdo oo qofka bas waxa la furay laba dukaan yani dukaanka cuntada iyo farmasiga iskoolasha jaamacadinka waxaasna waa la wada xiray marka wax isku dayayaan inay bremsayaan yani xogaa inay xawaaraha ku socdo virusku ku fidiyo inay yara gaabiyaan marka waa muhiim marka waxa naga saaran waajib bulsho ahaan inaan isku dayno graafkan inaan mataqaana ciisi aan xoolaha yara dheerayno inaan faafinin haddaan qof walba uu talaabooyinka dawladda ay mataqaana ay soo jeedisay uu raaco dasaan bay u badnaanaysaa marka waxoogaha makan background system info yani inuu yani dawladda waxay muhiimadda saartay waa inuu cudurkan sii faafin soma okay cudurkan laga hadlayo marka sidoo qofku ugu dhacaa okay يعني هرت لو سيابه ودعي كذا direct iyo indirect si toos ah iyo si toos ahaan oo indirect ah marka si direct waxa la dhahayaa wuxuu ugu dhacayaa dropsmith oo ah qofka hindisa ama kufaca oo yani dropyal ama yani dhaacaya afkiisa ka soo baxa oo adi wajigaada for example ama adi kugu dhaca adina aad neefsatid marka saas waa qaybta direct-ka indirect wuxuu ugu dhaci karaa qofka hadaan hadda aan virus for example qabo aan hindiso ama kufaco gacmahayga gacanteena miiskan saaro ka bacdi adi door second ka bacdi daqiiqad gacanta meesha isla meeshii aan viruska saaray adina aad saaritid gacantaad ku haysataa waxay ka dib wajiga aad saas ku marmaysid ama inaad yani markaas si indirect ayaad u qaaday marka labada siyaabo waa loo qaadaa waxa hadda laga wada hadlaya oo maadaama virusku uu cusub horta information badan baa naga maqan oo waxa weeye wax badan oo khibrad xitaysan ogeyn ayaa jira laakiin waxa la dhahaa badanaa viruska si hadda la sheegayo oo khibrada ay ka hadleen ilaa 48 saac ayuu ku noolaan karaa jirka dibadiisa marka hadaa meeshan ku hindista for example waxa dhici karta 48 saac inuu virus meeshan qofka bari yimaado xitaa meeshani waxa weeye viruskani yaa sidaas daraadeed loo dhahoyaa marka qofka haduu uu la xiriiro qof uu viruskaas ku dhacay yu guriga 2 week ka soo bixin ama sama sidaas daraadeed waxa weeye horta waxa jira waxa la dhaho incubation period oo ah xilliga viruska jirka kow uu galo إلا وكبني آدم كموجينايو على مذينك فيروسك وأه حمد
luqunta xanuunaysa muruq xanuun kufac marka xili baa u dhaxeeya haddaad igu kufacdo adiga for example viruskaad haysta waa igu kufacday Cabdullaahi ahaan isla markaa ani kufac ma bilaabiya ama yani viruskii isla markii waa in xili yani viruska waa kala qaybinayo iluu badanayo moogta jirka ku bata ayuu markaa calaamadooyin muujinaya marka hadda maalin waxaan akhrinayay research oo soo baxay maalin dhaweyd adii dhowr 3 maalmood ka hor waxaa la fiiriyey inta incubation period-aha waa imisa incubation period-aha waa xilliga oo dhaxeeya qofka viruska intuu jirkiisa gala ilaa calaamadooyinka uu kasoo muujinayo waxay dhaheen waa genome snict waa 5 maalmood marka la fiiriyo yani waxa la fiiriyo dadkii badanaa China waxa la ogaaday 5 maalmood inay tahay way loo yiri marka laba week karantiina yani qof way loo yiri waxa loo yiri horta waa genome snict-ka waxa dhigta ani inay 2 maalmood igu qaato 3 maalmood adina 7 maalmood inay kugu qaato laakiin dhexdhexaad waa 5 maalmood waxaana la ogaaday 97.5 yani almost yani 97.5 inay 11 maalmood gudahooda haddii cudur ku dhaco viruska in calaamadooyin ay muujinayaan marka waxaad haysataa labadaas week waxaad hubtaa hadduu qofka calaamadooyin aysan soo bixin de markaa inuu cudurkuusan qabin marka ma fahamtay marka tuug saas ayaa loo yiri sabab kale ayaa mataqaan ciisi qofka uu suudiin kara oo dhahay kara waa laba week loo sugiyaa oo yani ma naga qaado testka isla markii oo qofka waa loo dhahay yama quarantine joog horta istaraatiijiga Denmark ay ku socotay sida mataqaan ciisi xaaladda ugu horeysay Denmark waxa laga helay 27 February waa ninkii yarkii oo ka yimaaday Noor Italia TV2 reporter-ka ahaa waxa istaraatiijigoodu wuxuu ahaa qof walba oo risk ku amroodar ka yimaado oo ah Italy iyo mataqaan wadamadan China iyo Iran oo calaamadooyin muujiya ma aha magaciisa isha inuu meeshaas biskiima laakiin calaamadooyinka oo coronavirus ah xumad kufacaan luqun xanuun ayaa la test gareynaya oo la baariya qofkaas hadduu positive noqdo da waxa weeye asay yama quarantine la gelinaya qof walba uu la xiriiray hadduu meel shaqo u tagayna meel shaqada waxa dadkaas waxa lagu dhahay yama quarantine taga lama dhahayo waa laga qaadiyaa magaciisa ii sheeg test ma awood yani isbitaal qof walba haddii la laho inta haddii yama quarantine wax ku jira 2,000 intaas oo qof lama awood in intaas oo qof la baaro marka waxa ka fudud in gurigooda loo diro mid kalena way jirtaa aan soo raacinayo testga marka laga qaado qofka bani aadamka oo hadda for example incubation period-ka ka hadlay xilliga viruska jirku galay ilaa calaamadooyinka aad marka muujisay inta u dhaxaysa kaba shaqaa 3 maalmood 4 maalmood hadda test ka qaado waxa dhici karta inuu noqdo false negative oo ah testigii oo ku dhahaya viruska ma qabtid marka degiin soo false triggered oo been oo sax ahayn oo marka qofka adiga waxa dhici karta inaad qabtid inaad lahayo waad fasaxantahay marka bulshada dhex gashid asaas uu faafisay marka ilaa 48 saacadood uu korka ku wareegayo soo ma meelaha yani hadda yani meel uu lagu kufaco info oo scrub 48 saac ayuu noolaan karaa laakiin qof walba oo laga shakisan yahay waxa la rabay markaas 2 week oo waxa la gelinayaa quarantine mar walba hadda laakiin maanta waxa weeye wararku horta mar walba warar cusub ayaa soo baxaya sharciyo cusub ayaa soo baxaya khudbadii shalay ma garan inaad daawatay ra'iisul wasaaraha mara horta waxa weeye waxay sameeyeen horta talaabooyin waxay qaadeen aad u adag oo la dhahayo ilaa yani dagaalkii adduunka labaad talaabooyinka saan oo adag dawladda maysan qaadin bilaash uma qaadiso runtii because waxay arkeen hadda tan Italy oo ah wadan European isku barbardhigi kara sida runtii yani ula tacaaliyaan inta qof dhimata hadda waxa dhimashadu waxay marisay dhowr boqol oo qof I think hadda 800 oo qof kor bay u dhaaftay Italy marka taasi bay rabaan inay ka hortagaan oo yani sharciyadan adag oo soo jeediyeen dadka badankood oo dhinteen marka dadkii oo jiranaamia oo waayeelka ahay mase dad kala duwan waay boqolkaas qof 800 qof Italy horta way soo saareen waxay u badan yihiin horta dadka waayeelka qof dhalinyaro dhinta ma jiro way jiraan dad dhintay
oo waxa weeye waa la heliyaa inkalta tilfala laakiin waxa u badan horta mataqaana waxa u badan horta mataqaana ciise iyo sheeg waayeelka waxaa la dhahay hadda Italy oo kale dadka 70 ka sareeyay ama da'dooda 70 ka badan tahay 80 ay aad si xun yani oo u saameeyay dhimashadana waxa way ayuu u badan tahay dhalinyarada way dhimanayaan qaarkood dabcan haday cuduradan ay qabaan chronic disease waxa la yiraahdo cunugii qof dhalinyaro inuu qabo cudurkan cancer oo daaweyn heliyo immune suppressor medicine oo kale kuwaasna waxa way waxay keeni karaan inay dabcan risk group inay galaan okay qofka haddii uu waxaan ku dhacaan maxaa laga rabaa inuu qofkaas sameeyo marka yes good horta waxa weeye information badan ayaa jira horta oo Facebook dadka kala yani qaybinayaan oo share gareynayaan qaar waxa dhici karta information kaas inay sax yihiin qaarna inay khalad tahay marka waxa aniga raacina runtii oo waxay xagga dawladda ka socdo oo verificeert oo information sax ah marka horta waxa la rabo inaan u sheego bulshada ku nool Denmark information walba in la aamin ma aha waxaan akhrinaya for example waxa hadda la soo geliyay Facebook qofka habadsado am 15 daqiiqo wax kuleel ha cabo yani wax habeeraad waxa ka imaata dhici karto wadamada kuleelka ma gaarin waxaas yani magaciisi save minkaas hala badsado yani waxyaabo waxa jira mataqaan ciise oo asal u lahayn medicine ka horta waa in horta taasi laga digtoonaado oo la iska ilaaliyo laakiin dawladdu waxay sameeyay horta website-yadan aad baan idin ku dhiirigelinaa waxaan rajaynayaa inaan gelin Facebook hadhowto inaan la raaco oo xaggaas la akhriyo because helatiin opta training ayaa socda information usoo ayaa socda marka su'aalo badan ayaa jiraan laftiga xitaa garan jawaabtooda xaggan ayaan ka fiiriyaa badana laakiin su'aasha haddaan ku soo laabto hadduu qofka xanuunsado ama magaciisa iyo dareemo exactly dhibaato jirto exactly maantadan hadda intaan meeshaan imaan waxa akhrinay Sunan Stilson ayaa soo go'aan ay soo dejiyeen oo qof walba oo symptom haysta every Luftweier ama Luftweier symptom Luftweier maxay tahay marka sanbabaha miya waa hargabka waa fakir symptom caadi oo kufac qofka luqunta xanuunayso qandho kuwaas u badan horta muruq xanuun waa soo gaara iyo qofka neefsashada oo dhibisa tan waxa way waa inad symptomna waxay dhahay horta alla symptomna dadka opfatism corona waxa maadaama hadda tan aysan control uu ka baxay oo 600 iyo hadda maanta waxay maraysaa 615 numberkaas in caawta la kordhiyo u baahan 615 ku qornaa Sunan Stilson markii ugu dambeysay fiirinayo waxa way marka magaciisa ii sheeg qof walba waxa way symptomkaas haysta waa inuu isgeliyo yama karanteena waankaasi soo qofka dhakhtar lama xiriiraayo miya marka asaa isgelinayo marka asaa dhahayo aniga waa qufacooya guriga laba way ka bixin exactly ma waxa way sababta haddan waxa weeye marka hore wixii ahayd dhakhtar qofka la xiriiro oo yani dhakhtarka markaas wuxuu fiirinaya hadda waxaan ka hadlayaa waa markii hore yani inta shalay ay dawladda ay soo talaabooyinkan aysan qaadin marka hore waxay ahayd dhakhtarkaada wuxuu ka wareysanayaa rice anamnesa xagee tagtay yaa la hadashay qof contact ma la yeelatay oo corona laga helay wuxuu ogaanayaa haya ma test gareena qofka ma ka qaadina test ama maya laakiin hadda taasi lama waa la joojinaya sababtoo ah awood looma hayo oo waxaan ogaanayaa inay dadka aad u badan yihiin marka hadda waxaa la dhahay qof walba oo symptomskaas iska hela hargabka mataqaana feebarka kufac luqun xanuun luqunta xanuunta muruq xanuunka guriga ha joogo shaqada inuu saadin dawladda sababtaas bay u dhahda laba wiil dadka badankooda shaqada ka fariistaan wada la socota yani intaas qof ay shaqada laga fasaxay teeda labaad waxa laga rabaa qofkaasi inuu hadduu iska helo symptomskaasi in horta is ilaaliyo uusan tagin meelaha dadka ku badan yihiin meel public oo family-giisa ku ekaado family-giisana waxa ay guriga iska ekaadaan uusan aadin meel oo muxaadaro kale uusan aadin meel kale jaaliyad marka meeshaas haska ilaaliyo haska ilaaliyo inuu basas iyo tareema iyo inuu raaco haska ilaaliyo marka inuu mataqaan ciise wajigiisa uu tataabto oo yani ama meelo badan uu tataabto sidoo u fidin ciise viruska waxa laga rabaa haduu hargabka mataqaan ama haduu mataqaan ku facyo baartay
saasi inuusan gacantiisa ku facino waxa gacantiisa dad ku faco saad ku sharxi meeshana taabanaya ama qof salaama ama qof salaamiya meesha taabanaysa adigu kugu dhacaya qofka biri yimaad meesha taabto bir uu ku dhacaya marka inuu saasi loo yareeyo infectionka marka tan ugu muhiimsan waxa weeye honhigeena gacanta in la dhaqo sababtoo waxa gacanta badan waxay maanaysaa contact among physicality marka ama seeba shaambo lagu dhaqo ama waxay dhahan disinfecting oo ah alcohol caadiga oo si fiican waxa la ugu yaraan 20 second waa inuu si fiican gacantiisa ugu dhaqo hanaska ilaaliyo qofkaasi inuu u tago qof waayeel ama dad risk group ku jira kaba soo qaad ana xanuunsaday waayeel waalidkayga oo 30 jir ama 80 jir ah ma anfacayso ma caawinay hadaan dhaho otto oo soo salaan maalintaas waxa way dib baad u geysanaysaa waxaad ka caawinaysaa ma jirto marka taa horta waa waxyaabaha ugu muhiimsan intaan iloobin waxaan rabnaa xataa inaan ogaanayo diinta maxay ka qabtaa mawduucan sheekh abyada nusugooyo marka asaan wacayna bal waxa weydiinayna آخر زمان كي سولو مسا ما هو الشيخ وعلمه إن الورش طبعا مسائل بدن أي دتك أي متقنة قوان ساس ده مركب شيخ إلى آخر سب شيخ ونقم اوكي شيخ ما قبنا تليفونك واكو علينا waxa sii wada marka maxay ahayd maxaa kale looga baahan waxa tiri qofka dadka dadka oo waalidiinta oo dhibaatooyinka qabaan inuu soo booqanin markii la qufacayo in insaan loo qufaco maxaa kale shan wax ba horta dawladda ay mataqaanaa ciisi ii sheeg ay soo jeedisay oo iqtiraaxaad ah waxaana ka eegi kartaan website-kan Sunhet Stilson waa laga heli karaa ama website ay u bixisay corona smira Denmark oo ayadana booliisku maamuliyo labadaas iyo Serum Institute ka aykan waa laga heliyaa information kan marka shan wax bay dhahdo dadka xoog ha saaraan horta gacmaha si fiican loo dhaqo gacmaha meel ugu muhiimsan oo faafinaya qofka hadaad adig qabti corona in ma inaad faafisid marka ku faacisidna si fiican u qufac laba smahan salaanta gacanta waxa maalmahan korka la iska salaamo waxa weeye ahad bani aadan dadka baasaboorada la siinayo kuwaas dawladda ayaa lagu wareysanay sida rabaan la yaabo dad week 16 kamiya ma aqaan 17 odanse dadka oo aqaam qaadana jinsiyadda Deenishka ala rabaayo inay salaamaan maxay ahayd odayga duqa magaalada soo dadkaas maxaa kula talin lahayd inay salaamaan waxa weeye asin la wareysto borgamarista hadduu ku dhiiranayo waa salaamiya haddii kalena waxa weeye korkaas le way u gashay markaas waxa weeye mas'aladaas horta waxa weeye sheekh abyada aya okay salaamu calaykum sheekh sheekh live ku jirnaa marka saa ula socotid waxaan rabnay marka wax yar inaan nooga sheekaysid cudurkan iyo diinta wixii ka qabto okay marka codku microphone ku dhaweey sheekh marka waa hadli kartaa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu badan wax yar ka yiraahdo xanuunadu iyo caafimaadkuba waxay ka mid yihiin guud ahaan ilaahay bani'aadamka u qadaro oo bani'aadamku waa xanuunsado in caafimaadna islaamku sida wuxuu amrayaa inay sidaa tahay inay dadku asbaabtana qaataan oo qofku wuxuu ku caafimaadi lahaa la yimaado xanuunku haddii xanuun laga hortagi karo wixii uu kaga hortagi lahaana la yimaado arrimaha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aad buu inoo baray xadiis nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tadaawu walaa tadaawu bilxaraam istaweeya haddii aad xanuun ku dhaco istaweeya xadiis kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa nazala lahu daa'an ilaa waanzala lahu dawaa calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilahu
xanuun ma jiro ilaa ilaahay wuxuu soo dejiyey dawo dawadaas ama waa dawo la garanaya ama waa dawo dadku markaanay garanaynin laakiin xanuun kastaba dawa ilaahay soo dejiyey dadii hoos daweeya saasaa nabiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka marka waxaa laga rabaa inuu asbaabta qaato oo wixii hadday dawo leeyihiinna isdaweeyo hadday ka hortag leeyihiin xataa ka hortago oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi haddaad maqashaan dhul ku dhacay xanuun fidaya sida xanuunkan daacuunka dadku u yaqaanaan oo kale wuxuu nabiguna calayhi salaatu wasalaam dhulka ha gelina haddii aad ku jirteenna ha ka soo bixina bimacnaa xanuun fidaya hadduu meel ku dhaco ha gelin haddii aad ku jirteen ha ka bixin waa noocan hadda dee karantiinka la dili weeye dadka lagu samaynayo arrinkaas wuxuu ina barayaa marka in la qaato digtoonida iyo taxadarka la qaato waxaa jiray wafdi nabigeena u yimi calayhi salaatu wasalaam oo ku jiray nin qaba xanuun maqaarka ku dhaco dadka u yaqaanaan judaamka oo markaa jirka iyo qofka googooya ninkaas markuu yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waanu kula maaragtay islaamnimada waan ka aqbalnay meeshii aad ka timidna ku noqo marka wafdigii isaga waa wafdigii kalena madiinay markaa ku hadheen isagana waxaa la yidhi meeshii aad ka timid dib ugu laabo dabcan si aanu xanuunku dadka aanu u qaadsiin ama aanu ugu fidin waxaa kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fira min almajduumi ka firaarika min alasad qofka xanuunkaa qaba ka fogow sida aad libaaxa uga cerarto oo kale uga cafif macnaheedu marka waxaa dadka la barayaa inaanu xanuunku aan dee kii fidi kara taxadarkiisa markaa laga qaato oo xadiiskana nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qof xanuun gudbaa wataa yaanu u gudbinin mid yani maarata caafimaad qaba xadiiskaasina xadiis saxiixa weeye labada arrimood marka waa aasaas oo diintu waxayna baraysaa in laisdaweeyo waxay kaloo ina baraysaa in la taxadaro oo asbaabtana la qaato sidaa darteed dadka markaa ku nool waddankan waxaan markaa kula talinaynaa diin ahaan iyo sharci ahaanba inay markaa aadna u dhegaystaan lana socdaan waxa ay dadka mas-uuliyiinta ay hay-adaha khuseeya marka ayna barayaan oo inoo sheegin ay ka mid tahay marka haddii la yidhi shaqadii ha tegin ama lagu yidhaahdo meel boqol qof ka badan yaan la isugu imayn waxyaalaha marka waa in loo hoggaansamo oo caafimaadkii marka diinteenna uu ka mid yahay markaa loo hoggaansamo oo lagu dadaalo ayaa markaa loo baahan yahay waxaa jira arrimo dadka qaarkood ay xiiseeyaan inay had iyo goor ka hadlaan oo masalan xanuunkan oo kale waa ciqaab ilaahay ama maxaa sababay waxyaala caynkaas oo kale waxaas waa qeyd inuu ilaahay dadka ciqaabayo xanuunadu waa ku iman karaan iyo masaa'ibtu in ay tahay sabab bani aadamku leeyahayna way ku iman karaysaa masalan waxaad tusaale soo qaadataa diyaarad dad saaran yihiin bani aadamihii haddii darawalkii iska seexdo ama diyaaradii xumaado badna ay qaraxdo dee ma odhan karno waa cuquubo ilaahay subxaana wa tacala waxaynu odhanaynaa waa bani aadamku waxay iyagu markaa sababteen oo yimid xanuunada caynkan oo kale markaa si kastaba way noqon karaysaa wax bani aadamku sababay wax qadar ilaahay oo iska dhacay bani aadam ilaahay subxaana wa taala wax ku tusayo wax la ciqaabay inta way dhici kartaa laakiin inagu ma goyn karno ma odhan karno waxaasi ilaa waa sidaas waxaa kaloo iyaduna ay tahay munaasib in la baraarujiyo xanuunada saas oo kale ay dadka qaarkood waxaad moodaysaa inay ku farxayaan ama ay leeyihiin dadaan muslim ahayn baa ku dhimanaya ama dadaan caynka ahayn baa wax ku yooloobaya waxaasoo dhan waxaan saxayn qofka muslimka ahi diintu waxayna baraysaa oo nabigu qur-aanku balayna amrayaaba ina yidhi waqulu linnaasi xusnan dadka wax wanaagsan ku dhahaya macnaa dhaqan wanaagsan iyo ficil wanaagsan kula dhaqma dabeecada qofka muslimkaana kama mid aha shamaatada waxa la yidhahdo inuu qofku cid ku wiirsado dad dhibaata ay ku dhacday inuu ku wiirsado oo ku farxo oo maarata caynkaasi kama mid aha dhaqanka qofka muslimka arrimahaasi marka waa arrimo muhim ah oo loo baahan yahay inuu qofka muslimka marka wax ku ogaado guud ahaan xanuunada sidan oo kale ahi wax cusubna ma aha dadka muslimiinta ah iyo dadka aan muslimka ahayna ma kala laha oo waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kadibba xanuuno caynkaasi way dhaceen saxaabadii ku tirada badnayd ee shaam ku dhimatay waxay u dhinteen xanuunka daacuunka ama maaragtay xanuun sidaas oo kale u fidaya saxaabo aad u tiro badan oo saxaabadii nabiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam ay ku geeriyoodeen culimo fara badan qaarkood baa kutub ka alifay xanuunadaas intay deegaamadii ay ku nooleen ay ku dhaceen ay markaa dadka istaameeyeen waxaa ka mid ahaa kitaabkan weyn ee fatxulbaariga la yidhaahdo ee saxiix bukhaariga lagu sharxay imaamka sharaxay oo caruur isagu u dhalay xanuunka daacuunka la yidhahdo ay u dhinteen kitaabna uuba ka qoray uu kaga hadlayo axkaamta xanuunadaasi leeyihiin iyo qaabka la rabo in loola dhaqmo iyo waana kitaab muhiim oo dadkan anfici karaya weeye nadarada ama angalka dee sharciga marka isagu wax ka eegayey innaga marka waxyaalaha muhimka waxa kaloo ka mid a
goobaha la isugu imanaya masaajidadu ay ka mid yihiin jumcayaasha iyo jamaacaadka meelahaas oo dhan waa in markaa loo hoggaansamo marba hay-adaha khuseeya waxa ina leeyihiin markii hore waxaa layna yidhi 1,000 qof meesha isugu imaanayso ka badani hal la baajiyo masaajidada qaarkood markaa aad u tiro badani waa inay markaa baajiyaan markii dambe waxaa laga dhigay 100 annagu hadda masjid tawxiid oo Copenhagen masaajidkii waanu ka baajinay salaadii jumcada dumarku oo sabtida isugu iman jiray waa laga baajiyey axad oo tafsiir aanu akhriyi jirnay oo rag badan isugu iman jireen waa laga baajiyey caruurta oo election boqolaal iyagoo loogu dhigi jiray activity kale waa laga baajiyey waxaas oo dhan waxay noqdeen waxa la wada xiray iyadoo oo maaragtay dee laga duulayo sharcigeena iyo diinteena iyo madaxda waddanka laftooda iyo dadka umuurahan aadka ugu xoogaalka talooyinka bixinayaan waxaas oo iyadoo laga duulayo ayaa markaa go'aanka talada la qaatay dadka Soomaaliyeed ee dhulkan deganna waa kula talinaynaa inay hadday jiraan degmooyinka iyo tuulooyinka masaajido wali furan ama shaqaynaya iyo goobo dadku isugu yimaadaan in markaa maaragtay la xiro oo loo hoggaansamo talooyinka iyo nasaaixda dadka arrimahan ku shaqada leeyahay ay inoo sheegayaan sharcigeennuna uu maaragtay dayna amrayo idinkuna aad ugu mahadsantihiin inaad dadka wacyigelisaan oo mawduucdaasi maaragtay kala hadashaan qof xanuunsanaya hadduu jirana waa inuu isaguna dee qaato nasaaixda iyo talada oo aan la oran waxyaalaha aan dawo ahayn la isku daweeyo ama qofkii aanu dadka iska dhex joogin waxaa laga yaabaa qof dee la karantiimeeyey waliba inagu Soomaalida aynu nahay waxaynu jecelnahay inaynu iska sheekayno ama makhaayadaha tagno ama la isu warwareego qofka haddii la karantiimeeyo waa inuu hoggaansamaa oo meeshii la yidhi joog waa inuu joogaa oo dee nabiga aynu amraya calayhi salaatu wasalaam laa yucdii mumridun calaa musixin qof xanuunsanaya ayaanu xanuunkiisa u gudbinin mid caafimaad qaba baa nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xanuunkan waxaa markaa si sahla markaa ku fidaya dembigaad ba ka qaadi kartaa waxaa laga yaabaa xitaa aakhiraba in lagu qabsado haddii aad adigoo xanuun fidaya qabo og xanuunkaaga in dadku ay qaadi karaan intaad la soo dhex fadhiisato ummadda ku jirto sababka inaad wax ku yeelan karto oo adduun iska badaya aakhira xitaa dembi lagu qabsan karo waxaa dhici karaya weeye umuurahaas oo dhan marka waa umuuro xagga diintu ay inoo cadaynayso waxaa kaloo iyadana habboon inaan waxbana aadna loo bixin ilaahay qadarkiisana lagu kalsoonaado iyadoo asbaabta la qaadanayo haddana waa in qofka muslimka ahi qadarka ilaahayna ku kalsoonaado oo wixii ilaahay qadaro unbaa dhacaya adigoo dadaalaya haddii xanuunkiiba kugu dhaco waa inaadan dee argagixin oo aadan maaragtay aad u bixin ilaahaad ku kalsoonaato ilaahay ku daweyn karo asbaabtan aad qaadato ilaahayna barida subxaana casa wajalla qadarka in lagu kalsoonaado iyadana marka waa muhim oo aynaan dee u dhaqmin sidii dadka aan iimaanka lahayn oo xanuunkanina da waxa ugu badan oo keeni karo waa dhimasho dhimashana de waa la dhimanaya waxa weeye kullu nafsin daa'iqatul mawt qof kastaba way dhimanaysaa adduunyadana waa laga tegaya hadduu qof joogaya ma jiro taasna waxa weeye dadka xanuunku ku dhaco ilaahay naga badbaadiya haddii bay jiraan waa inay qadarka ilaahay ku kalsoonaadaan asbaabtana qaataan intaasi waxaan rajeynayaa insha allahu taala inay guud ahaan nagu filan tahay sheekh hal su'aala qaba intaana ku macasalaamaynin fadlan dad waxay dhahaan sheekh cudurkan wuxuu ka mid yahay calaamadaha yawmil qiyaamo marka ra'yigaas muxuu ku leeyahay waxba kama jiraan wax ka jira ma jiraan yani waxa weeye cudurkan diintu ma sii sheegin quraankuna kuma yaalo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma yaalo waxyaalaha iska rumariska waxyaalaha iska marka wax dhacaan dadku iska sheegaan khuraafaadka oo iska tiro badan yihiin dad baana jecel wax kastaba inay xagga diinta u soo leexiyaan ma jiro arrinkaasi ma jiro intaan waan ka ogahay diintana ka aqaano xadiisna kuma yaalo quraankana kuma yaalo aad iyo aad u mahadsantahay sheekh ilaahay khayr ha kaa siiyo waxaan hadda noo soo jeedisay marka wax ma weydiin lahayd cabdullah baarak allah fiik sheekhna ilaahay khayr ku siiyo amiin waa mahadsantahay sheekh cabdullahi ugu dambeyntii marka waxaa la rabaa inaad dadka la talisid iyo u sheegtid waxa laga rabo hadda waxaan akhrinaya Facebook inta wadaad ka hadlayay horta Soomaalida waxa ma sha Allah magac bixintu way ku fiican yihiin kama dhacaan waxa weeye badana waa taqaana marka cudurkan coronavirus Soomaalida wuxuu bixisay mid qaana hargabka kibray إذا لك آخر مركز هركب ككبير هذا وأنا تاس لا أقنصه ما هرت متقنا رنتي وحي هذا أنا كنا وحن أهمية ما تأمنش أوف فريست وحورته
cudurkan dabcan cudur sida laga badbadiyay oo halis oo ah maaha waxa akhrinay statisticada waxa boqolkiiba 80 horta waxay haysanayaan waxay dhahaan mil falloop oo wax fudud oo hergebka waxaa dhici karta 15 boqolkiiba 15ka soo haray oo jira siyuuska u baahnaadaan oo oxygen lagu qabto 5% oo baahnaada intensive oo ah dadka waayeelka iyo waxaas waxa muhiim ah badanaa dhalinyarada hadda nala daawanaysa iyo dadka daawanayaba inay gaarsiiyaan mar walbana la socodsiiyaan waalidkooda waan la socdo badanaa Facebook wax u badan waa dhalinyaro maadaama uu halis ayagu ku yahay dadka critical group ku jiro ah saan sheegay dadka cuduradan qaba chronic hypertensionka dhiigkarka sonkorka kansarka iyo group kale laba group kale ayaa jiraan si fiican uga hadlno ah dumarka uurka leh iyo caruurta dumarka uurka leh badan waxa la og yahay in infectionada uu ku badan yahay si fudud ugu dhaco laakiin inkastoo hadda la dhimashada aad ma badno kama badna dadka shacabka caadiga laakiin waxay dhahaan fashigtiya sireel oo guriga ay kana ha joogaan ha badnaadaan waxa way dad badan ayaa weydiinaya oo dhahaya yani ma safarnaa ma baxna waxa way runtii waxa wanaagsan waxa way looma baran in la guriga jooga laakiin sida yani magaciisa cudurkan وسن آد أوصفه في محاورات كسر السيد الله جابيو وحنا قصار مواجب سوادات كير قفل بينه متقان مقعيسي يوشك كقريب خاطه marka ha hogaansado qof walba dawladda hana la socdo website-yadan oo update mar walba laga dhigayo mid arin yar aan rabaan si fiican u qeexo aan markii aan wax yar kor ka dulmaro waxaad i weydiisay qofka hadduu iska shakiyo cudurka muxuu sameeyaa horta waxa ugu muhiimsan hargabka haddaad qabtay ama symptom fode yaan tagin leewaqta soo taagin leewaqta waa khalad taa waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan runtii aad ugu xumaano ay markii dadka sameeyaan unfortunately ajnabi badan ayaa asaas ku dhacda because waxa information kala lama socdaan sababta loo dhahayna waxa wax kale ma aha adi markaad soo istaagtid kaba soo qaad hargabkii ama coronavirus ayaa laga shakisan yahay waxaad imaaday leega waqtiga fluid waxa leega waqtiga dhan waxa weeye waa mistinct waqti habaki contact qof oo coronavirus qaba kulligood yama quarantine la galo way ninka dhakhtarka xataa xariiqtay yama quarantine noqdo fluid dhakhtarkii ka shaqeyn la xitaa shaqadii ma qabi karo marka wax faa'iido maadan keenin horta guryaha mar walba marka symptom haddaad iska shakisid horta saan kuu sheegay hadda way bedelan systemka ah haddaad symptom bistuha symptoma kufa ama hargab guud ahaan midkan luqunta xanuunsa muruq xanuunka iyo madax xanuun guriga jooga uma baahan dhakhtarkana wacdi dhakhtar goora wacaysa haddaad haystid yani waqti dheer aad xanuunsan tahay dhowr maalmood oo kaba saqaad 5-6 maalmood uu si kugu sii xumaaday ama bistuha onno kale hadaa yani neefsashada ku dhibiso ama almental standkaada xaaladaada guud aad u xumaado markaas telefoon ka qaadanaysa waxa wacaysa din aynle dhakhtarka almenprax haduu xilliga shaqeynay ku jiro ayaad wacaysa ma wacaysid enentu ma wacaysid ambulance ma wacaysid taa waxa way waa khalad unless aad naf taa oo diminisid ambulance lama wacayo telefoonada aad baa loo buuxiyay maalmahani xilliga ka baxsanna dhakhtarkaada xilligu furan yahay oo ah galbihii iyo habeenkii waxaad wacaysaa leeg waqtiga caadiga haddaad ka shakintaan su'aale iyo qabtidna leeg waqti ma wacaysid waxaa jira telefoon oo hotline ay u sameeyaan coronavirus marka xaggaas ayaad ka helisaan concrete swa kaba soo qaad waxaad tahay qof daawo qaadanayo oo risk group ku jira maxaa sameynaya waad iska shakisan tahay telefoonkaas ayaad wacaysaa waxaad ku fadhiya dad khubara oo ka jawaabi kara su'aalahaasi arintaas waxa horta inaan qeexo soo qofka hadduu iska dareemo inuu viruskan uu qabo leebakta ayuu tagin dhakhtarkiisa caadiga ayuu tagin gurigiisa ha joogo hadduu cudurkii uu ku xumaado markaas uu dhakhtarkiisa neef ay qabato neefsada ku adkaato almental stand iyo xaaladiisa guud aad u xumaato markaas waa inuu telefoon ka qaato usan waa because waxa weeye badan waa after wala la heshiin waxa la hebel okay waxaad imaanaysaa areas because waxa weeye areas waa diyaariye hadda waxa akhrinay unsa inay bilaabiyaan waxay dhahaan drive through testing ama drive through waarin ay South Korea aad u bilowday yani koonfurta Korea oo ah adiga gaariga wadta ayaad imaanaysaa meel oo tendooyin ka dhisan yahay gaariga dhex maraysa waxa laga qaadayaa test kasee loo qaadaa waxa laga qaadayaa vatpin adiga bahal yar oo dhukiga oo kale ma aragtay oo dheer ayaa luquntaada nasopharynx iyo oropharynx meesha ugu dambaysa sanka maaragtay oo luqunta ah iyo afka luqunta qaybta labadaas qaybood ayaa la gelinayaa dheecaan yar laga soo qaadayaa sanka
iyo afka meesha ugu dambaysa waa xawaalid u bahaali laakiin wax xanuun ma aha kaas testkaas ayaa la qaaday waa markaas hadda u baahan tahay wax la fiirinaa inaad u baahan tahay in la gelsa oo yani isbitaalka in lagu dhigo xaaladda haddii aad u xun tahay ama inaad gurigaada aad lagu diri karo kabacdi jawaabta ayaad helaysaa ma maqasho qof Soomaaliya ku dhacdo horta Soomaaliya waan fiirinaa website-yada waxaan markii ugu dambeysay Allahu a'lam laakiin markii ugu dambeysay wali waxay dhan xaalad aan ma aragtay Soomaaliya ka hadlaya xaalad coronavirus nagu ma dhicin qof Soomaaliya oo Denmark joogana qof Denmark lama garanayo qasad waxa la dhahay 10 qof ayaa isbitaalka shalay yani nambarada shalay maanta wali ma aysan soo bixin nambarada shalay 10 qof ayaa isbitaalka jooga oo labadooda xaalad laba kamid ah xaaladooda ay tahay critical intensive ku jiraan inay Soomaali yihiin inay Chinese yihiin inay ummad kale yihiin Allahu a'lam taa ma garanayo ma sha Allah okay waqtiga wuu dhamaaday ma su'aalo ma jirno waxaan fiiriyay kolba aad u mahadsantahay Cabdullaahi Ilaahay khayr ka siiyo waxa umad u soo bandhigtay annakana iyo maanta ballan waxa la leenahay hooyo Soomaaliyeed oo dhibaato ku jirto gabadheedii laga qaatay marka waxaan rabnay inaan wareysano oo weydiino sidii sababta loo qaaday iyo maxaa keenay marka insha Allah 2 saac habeenimo aan soo gali doonaa hadana afan arin bayar baran ku daro sharciyo badan ay dawladda soo ansixisay maanta halala socdo waxa kamid ah sharciyadaasi in la dhahay meelaha goobaha ay 100 qof ka badan يعني بقول قف كبر ما إيمان كان اسمه ما إيمان كان مال واحد تاسيس لما مركز هو سجلية كبس قاعد المحاضرين كجمعين كوا أفليسي واحد أرين كله شرتوا وأروسية ده أروسية بدن أي شر unfortunately مركا بدن على الوقت كان يا معلم هذا القطار إن شاء الله أما أرين تصفوا ده لما قف يقرنا ها زمان ها تقالب هرتوا اسكسي بقريسنا يعني هرتا لكن أرنتاسنا هسكي إلى صوت بوليس حق وحلوسي ما أود إنه إيمان كرو أو ماشي حري كرو سلوك كرو حلوسي أود ما تدا لجايش كسيه عدينا العذر في ديني سوكله إنه جورج هذا الإيمان كرو أو الباري كرو مركز شرعية بدن أي الصعدة رنتي كل وداني ما نسيف عنه ما آخرين لكن ساسي هلا الصعدة وبسيتي الدولة دليهم بدن حاجة سبيسوق لنا يعني marka hadaad ku soo qori kartiin hadhowto insha Allah link waxa dhan oo haysid anaka soo gali doono insha Allah aad u mahadsantihiin caawan is arki doona insha Allah assalaamu alaykum kama kachi baashniyo